Hello, السلام عليكم caruuray meel kasta aad joogtaan. waxaan leeyahay Ramadaantii sii dhamaanaysa, Ramadaan Kariim iyo Ciid Mubaarak. meel kasta aad joogtaan, caafimaad iyo nabad iyo cisi ku ciida insha Allah. bismillaahi kariim, gidigeena Allah inaga aqbalo. waxaan idin akhriyayaa buuggii maanta, waan idin dhammaystirayaa. waa buuggii The More About Ramadan. intaasaan maanta idinku dhammaynaya insha Allah. waan ka bilaabayaa dee maxaan dhahday halkaasaan ka wadaya, laakiin waxaan idiinsi sheegayaa waxa before marka haddaad jeclaataan sidaa ula socotaan maaragtay borogaraamadan soo duuduubo waqti dambaan arkaya inaad daawateen. laakiin haddaad doonaysaan borogaraamkana si fiican aan usii wado oon maxaan soo yara dedejiyo, waxaad daawataan subscribeska iyo bangaleelka iyo like inta taabta. maxaan dhahay markaasa borogaraamkan soo badinaya insha Allah, because imka ma garan karo naciibtii inaan jeceshihiin iyo in kale ma garan karo. laakiin marka intaa badisaan waxaan ogaan karaa inaa interestedaad ku tihiin. marka waxaan rajeynayaa inaad taabataan maxaan dhahday bangaleelka yar halkaa iyo subscribeska juka siisaan, halka kalena taam gafo maxaan dhahday like taabataan. aan rajeynayaa iska maxaan dhahdaa insha Allah bismillaahi kariim. halka imka waxaan inoo bilaabayaa Layla iyo reerkoodii. marka sidii caadada aniga ii ahayd English yareed baan idinku akhriyayaa, Soomaalina waan idinku sii turjubayaa sida caruuraha kale maaragtay dibadda ama jooga wadankii ay u fahmaan maxaan dhahdaa af Soomaali ugu fahmaan, idinkuna af Soomaali ugu fahmaan, idinkuna English garanaya ama wadamada aan English ku hadlin. waxaan rajeynayaa in Englishadana fahantaan, af Soomaaligiina fahantaan. okay, bismillah. The late night Layla goes to see her father. Dad is study on special day. Layla question. habeenkii gelinkii dambe oo Layla yar waxay u tagtay aabaheed. aabaheed baa maxaan dhahday maalinta maxaan dhahdaa wax uga sheekeynayay shiyaas. waxay weydiinaysay su-aalay weydiinaysay, waayo dee caruurta yaryar markasta su-aalay inta badan waalidkooda weydiiyaan. Oh Layla, it is the first of the holy month of the Ramadan. I am sorry we didn't tell you. aabihii baa wuxuu ku yidhi Layla, waxa maantii Ramadaan ugu horreysay weeyaan, laakiin kumaana sheegin, waan ka xunahay. Now since you are a big girl, let me tell you more say that. wuxuu yidhi maadaamaad inan weyn imika noqotay waxaan kaaga waramayaa Ramadaanta. During this month we don't eat or drink from dawn to sunset. Dad explained. wuxuu ku yidhi muddada aynu ku jirno Ramadaanta waxna cuni mayno waxna cabi mayno inta qoraxdu ay ka dhacayso. aabaheed baa u faahfaahinaya. Layla remember what she saw earlier the day. Layla yar way xasuusnay wixii maanta gelinkii hore ay aragtay. So that's why I saw you have a meal in the middle of the night, shouted Layla. iyadoo qaylinaysa codkeeda kor u kacsan bay tiri waayo maanta waxaan arkayay habeennimadkii habeenkii markii idinkoo wax cunaya. Yes beauty, yes, that's right, it is suhoor, the meal before dawn. Clever girl. waa sax weeyaan, suxuurtii bay ahayd intaana qoraxdu soo bixin. waxaad tahay in yaroo maskax fiican. But you know Layla, Ramadan is not just about to stay away from food and drink. marka haddana aabaheed baa uga sii sheekeyn. wuxuu ku yidhi Layla, waxaad ogaataa Ramadaantu ma aha inaad cuntada iyo cabitaankaad ka carartid oo keliya maaha.
a month of the mercy where the door of the paradise are open. So we increase the prayer, salah, and increase the Quran. wuxuu yidhi waxaa bisha waxa naxariista ayaa maxaan dhahdaa naxariista ayaa furan, albaabada jannada furan, marka waxaa la badiyaa salaada, ducada iyo quraan akhriska. Do you know the Quran was sent down during the Ramadan? Ma ogtay quraanka in ramadaanta waqtiyada ramadaanta inuu soo degay? Dad asked Layla. And aabihii baa inantiisii weydiiyey. That interested. I didn't know that, Dad, say Layla. Oh, maxaan dhahay maan ogeyn bay tiri. Dad, tell me more about the Ramadan, request Layla. Haddana waxay ku tiri aabbo iiga sii sheekee ramadaanta iyadoo wixii maxaan sii dhigsan. Ramadan is also a month of the good deed. Ramadan waa waxa weeye bisha maxaan dhahdaa ducada iyo wax kasta iyo maxaan dhahdaa wixii wanaagsan la basado. waxa weeye sadaqada, waa hadalka wanaagsan, waa iscaawinta, waa isgacan qabanta, inaan la caytamin, inaan la dagaalamin, inaan la isxamalin. Intaa weeye iyadana intaas ku jirta ramadaanta inaan samaynin. A month that remind and teaching us to be forgiveness, loving, caring, and generous. waxa weeye ramadaantu waxayna baraysaa sidaynu isu cafino, sidaynu isu jeclaano, sidaynu maxaan dhahdaa isaga warhayno, sidaynu isugu duubnaano. I understand. So we are training to be good during the Ramadan. That's we can continue to be good every day. Layla say, ha, waan fahansanay beti, waan fahamay. Waxaynu ku jirnaa waqti tababara inaynu noqono, inaynu wax wanaagsan samayno ramadaanta, inaynu sii wadno aynu maxaan maalin kasta calashan waxaan ducooyinka rabaa, salaada, sadaqada, hadalka wanaagsan, wixii wanaagsan oo dhan inaynu wadno. Layla marka tidaha, that's right Layla, Dad agree and continue. Ha abo waa sidaa weeyaan Layla. Marka wuu sii watay hadalkiisii wuu sii watay. Markan day waxa weeye sida la isu caawiyo ma aragta ay qof weyn la caawinayo, bisad yaro roobka laga celinayo, ubax qof la siinayo, yacni waa waxa weeye waa waxyaabaha ku fiican tahay maanta in lagu dhaqmo weeyaan. Okay, during this month we give the charity as well. Bishan sadaqadan waan isbaxsanayna soo maaha. We help the need and provide them with the good food and many other things that may need. waxaanu sameynaynaa bishan oo kale wax baynu caawinaynaa, sadaqadaynu baxsanaynaa, cunto fiican baynu bixinaynaa, dadka kale wax u baahan baynu caawinaynaa. When you giving those in need, you will be rewarded by Allah. markaad wax baxsatid ramadaanta ajar bay kuu noqonaysaa, ilaah baa hadhowta kugu abaalgudaya. Dad, can I give some of my toy to the children in need? Asked Layla. waxay tidhi aabbo waxaan toygan waxaan aan ku cayaaro ma u baxsan karaa sadaqo, caruurtan haysan ma siin karaa? That's great idea Layla. I am very proud of you, say Dad. wuxuu ku yidhi ha way fiicantay buu yidhi, aad baan habi kugu ahay caashan, proud of you. markaa markay bixinaysa sadaqada. Do you see that? Dad, I still don't understand. Why do we not eat and drink during the Ramadan? Aabo, wali ma fahansani why wuxuu cuni weyne wuxuu cabi weyne. When we don't eat and drink, we don't understand what is like to be hungry. maxaan dhahdaa wuxuu ku yidhi markaanan cunin aynan cabin
هدينا عشان يعني وحوي معنوه هدينا المحايدة هذاي أنا السومين أو حبال ما قرن كرنا سيدي محتي قاشدو أي تهاي. So we must always be thankful of Allah for the what He give us, not to waste food, and remember those who don't have much food. إلهي وين نقوم هالنقنا إلهي وين نقوم هالنقنا وحي إلهي نسيي وين أنو انتظر لغو عيارين لغو محانا لغو قبين محانا وين نحسسنا أننا داد بانشرين عنتا هايسانين وين نحسسنا قوان عنتا هايسانين وقوة تذكر عنتا هايسانين سوائد Ramadan is a support the cool dad. Can I fast too, Layla? بعد رمضان وحوي ورمضان وحوناكسن ويان ما تصومي كره. Yes, you can. Try tomorrow. I will wake you up for the meal of before dawn, inshallah. Okay, way أبيد حكول هي دريت الصوم أنا كوكعيني وقتي السحور تحتها. إنت نقرح الصبح. Now better you get sleep early. إمك وين الحلو هالسحتي. Dad advice. وحسيي محل هذا أي طلق وحكوري إمك السحر. Yes, I will. Ramadan Mubarak, Dad, said Layla, very excited. Ramadan Mubarak, sweetheart. waxay ku tiri haye aabo Ramadan Mubarak aabo ways maxaan dhahday waan xiisana way u xiisa u saxanaysa soo ogaato waxay tahay Ramadaanta saasi ku dhamaatay Layla iyo Ramadaanteedii oo ka buugi okay marka wax rajeynayaa inaad maxaan dhahdaa caruur aad ka hesheen ayaan rajeynayaa insha Allah bismillaah kariim waxaan ila soo xiriirayaa oo sheekooyin kale idinka sheekeyn doonaa insha Allah markay gaadho maxaan bacda Ramadaanta imika Ramadaantii way dhamaatay maxaan dhahdaa wax yarba ka harsan marka sheekooyin kale ayaan wiiga soo socda insha Allah idin bilaabi doono sheekooyin kale normal caadi iyo caruurta ah caruuray stay maxaan dhahdaa gurigiina ku jira safe noqda maxaan dhahdaa waalidkiina maqla maxaan dhahdaa waa idinkaadee maca salaama aan ciid mubaarak bye bye